kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageystayaal halkani waa kanaalka xogta maanta oo aan idinkugu soo gudbin doono waxyaabo quseeya arrimaha bulshada. maantana waxaan idin soo gudbin doonaa qiso quseysa Mawlid Cali Duqow oo ka mid ahaa arday ka qalin jabinaysa jaamacadda SIU. Mawlid ayaa ardayda wax badan uga duunaa waxa uuna ka mid ahaa dadka qaba baahiyaha gaarka ah isagoo waqtigii uu waxbaranayay soo maray dhibaatooyin badan oo quseeya arrimihiisa waxbarashada. Mawlid oo ka sheekeynaya arrinkaasi ayaa sheegay inuu xitaa mararka qaarkood awoodi waayay inuu qaato buugaagta waxbarashada isagoo buugaagta gashan jiray dhabarka kadibna gurguuran jiray. waa kan Mawlid oo iskiin baraya kana hadlaya marxaladaasi uu soo maray. magacayga waxaa la yiraahdaa Mawlid Cali Duqow. runtii waxaan ahay ardayda maantay ka qalin bedelanaysa jaamacadda Soomaaliya International University khaasatan public faculty of arts and social science. runtii maantay qiimo aad iyo aad u weyn ayay ii tahay in lagu casuumo xafladan aad iyo aad u qiimaha badan. runtiina aan filayaa magaca ardayda maanta qalin jebinaysa waqtigu uu saaciday saakay inay halkan soo fadhiistaan. waxaan maanta goobaad siinayaa allihiina abuuray haddana nagu galladay nimcooyin badan ay kow ka tahay kana aan saaka u fadhino. run ahaantii farxaddayda lama soo koobi karo subaxan oo isniinta ah, waayo hayaan dheer kabacdi waxaan maleelnay halkii hayigeennu ahaa oo ah imaanshaha subaxan oo kale. maskaxdii ka dambaysay inaan halkaan imaano ayaa iyaguna mahad inaga mudan gaar ah ay iga horeeyaan waalidiinteennii nala garab garay oon u istaagayba oo hiilyahoo inagu siiyey soo gaaritaanka halkakan aan maanta taagannahay. runtii waxbarashadu waxaad kala kulmaysaa caqabado aad iyo aad u fara badan. markiiba caqabado aad iyo aad u fara badan ayaa kala kulmaysaa. sabar la'aantiina lama wadi karo haddii aad ku jirto dadka baahiyaha gaarka ah qaba sida anigoo kalena kumaba sii jirtada. runtii waxaad moodaa dadka kale inay xoogaa uga duwanahay marka la yidhaahdo waxbarashada. haddii aan wax yar ka taabto waxbarashadiidii saan ku soo bilaabay. runtii waxaan xasuustaa aniga maalin markii aan dhiganayo dugsiga hoose dhexe sare markii aan dhiganayo waxaan qaadanayay kaba soo qabo dugsiga hoose oo kale 7 maado aan qaadanayo ama dugsiga dhexe. waxaa dhacda in aan awoodi waayo in aan qaato buugta aan ku qaadanayo xiisadaha. runtii waxaan samayn jiray anigoo diidayo yoolkaiyo waxbarashada inaan ka haro in aan sameeyo 2 buug oo ku soo qoro 7 xiiso ee aan soo qaadanayo. runtii waxaan samayn jiray 7 xiiso ee aan soo qaato 7 maado xiisooyinka aan soo qaato markii aan xaafadda imaado in aan ku guuriyo buugtoodii aan ugu tala galay. runtii ma aanan lahayn xitaa 2 buug awood gooni ah oon ku qaato. waxaan samayn jiray in aan inta 2 buug sida lacagta isku laabo aan suryaalka iyo suulka inta u dhaxaysa aan ku qaato. alxamdulillaah kuma aanan khasaarin. maantay waxaan taaganahay runtii meeshii aan haminayay in badan oo ka mida yoolalkii aan lahaa mid ka mida anigoo jecelna insha allah inaan sii wada doono. kadib sheekadaasi uu ka sheekeeyey Mawlid ayaa waxaa goobta uga sheekeynayay fadhiyay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya
xildhibaan Sidiiq Warfa ayaa u ballan qaaday Mawlid in inta ka hartay waxbarashadiisa oo asagu ballan qaadayo inuu dhiibo. أنا كلمتي إن ديلا دهين وحن رباينا ندين شيء وحدي رجلي وحيد كفل مولد يا كفل مولد وحاول بلغ يا إن سكولرشيب كلاي ماستر كيسينا أنا قام مسؤول قارة ديلاين ballanqaadkiisaas kadib ayuu Sidiiq Warfa ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda SIU ayaa waxa uu kula dardaarmay inay naftooda iyo dalka iyo dadkaba wax u qabtaan. waxaan idin xasuusinayaa maanta inaa xasuutiin ardayda la hadlayaa maanta qalin jabinaysa waalidiintii iyo qof walba oo maanta meesha gaartay ku soo gaarsiiyay waxa weeye hooyada laga yaabaa maskiina oo shaqaynaysa aabba mataqaanaa askari dad mataqaanaa lacag yar ku shaqeeyay inay noloshoodii waqtigooda geliyeen inaa maanta meesha joogto gaarsiiyay marka waxaan rabaa qof walba qofkii maanta halkan ku soo gaarsiiyay inaa mahadceliyo midda kale maanta qalin jabin weey laakiin noloshu maanta bilaabanaysaa maanta maahan maalintii aad dhihi lahaydeen waxbarashada dhammaatay weli waxaad dhihi lahaa intaa yartihiin waa inaad qaadatiin mataqaanaa wax la risk noloshu waxa weeye juhdi noloshu waa adag tahay waxaan rabaa inaad ogaatiin noloshu caqabado badan ayaa ka hor imaan doona qofka waxaa lagu mataqaanaa lagu xasuustaa marka uu kufo sida uu kaco shaki ma leh inaa mataqaanaa ay dhibaatadii soo gaar macnaha inaa shaqo la'aan jiri karto inaa mataqaanaa rajo laakiin rajo lama dhigo inaa maroo marka sida qofka waxa lagu xukumaa sida marka uu hoos u dhaco sida uu soo kaco noloshu waxa weeye mar walba inaad ogaatiin noloshu waa adag tahay laakiin waxa waa annaga ayaa la rabaa inaan mataqaanaa u istaagno waxa adiga jeceshahay inaad mataqaanaa wadato dalkan saa la socotiin dhalinyarada boqolkiiba 75 weeye shaqo la'aanta waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba 72 aniga markii wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada u yimid waxaan bilaabay markii ugu horeysay sahanka suuqa shaqada waxaan warakutaynta waxaan rabaa data rasmi ah waxaan markaa hadda waddanka u kala dirnay marda magaalada boqoshada ay joogaan dhalinyaro aqoon leh oo aan soo aruuriyo xogta rasmiga ah ee suuqa shaqada si aan u ogaano aan dhimo mataqaan heel baa shaqalaanaysa ciidan shaqalaana because waddanku wuxuu u badan yahay waxyaabo badan informal economy la yiraahdo idinka marka waxaad tihiin mustaqbalka dalka ayaa tihiin waxaan dhihi lahaa marka intaa yartihiin aan kula dardaarmaya waxay tahay adduunyada markaa weynaato qofka markuu 40 gaaro waxa weeye noloshaada marka waxaad gelin ka dambe aad galaysaa oo ma qaadan kartid riski ma qaadan kartid laakiin marka 20 jirtaay oo mataqaanaa 20 jirta waxa loo baahan yahay inaad wax tijaabisid inaad cabsatid ma hadaa mataqaanaa waxyaabo entrepreneur business hadaad galaysid hadaa mataqaanaa aad galaysid mataqaanaa innovation oo wax abuuraysid hadaa mataqaanaa damacsan tahay inaad wax samaysid macnaha muhiimaddu waxay tahay intaa yar tahay waxaa la qaataa fursad riski ah si mataqaanaa markaa aad 40 gaartid wixii aad ku fiicneed inaad ku adkaystid wey oo mataqaanaa gadaalka gaar ma jiro inkastoo Soomaaliya 40 qaan gaaraan